waqtiyada kamid ah suugaanta naan xiisa gaar ah u hayay curinteeda imika wax laga yaabo suugaanta baadhisteeda aan ka jecelahay curinteeda ayaa waqtiyada kamid ah baraha bulshada ku isticmaalaan ma yaro kooban ku soo qoray erayo dabadeedna magaca waxa ku jirtay suugaanteena ku caanbaxay ee hodan waad garanaysaan iyo jacaylku sida iskugu yaalaan sida awgeed nin Jarmalka jooga ay la soo xiriiray wuxuu ugu yiraahday adigana miyay ku heshay markaas aan ku maxaa tiri saaxib markaas uu ma hodan baa adigana ku heshay markaas aan ninkii soraysanay markaas waxaan moodayay inuu jeedo hodantii cilmi heshay inuu halka igala haystaan moodaya soo isaga waa hodan heshay way markaas aan ku yiri ودي ما هذا تيعل ما هذا مركي دم يقولوا ويقش شيء قصديس قصة حنون بدن أيه حيد ولا اللي يرابوها هرجيسوك شغيسين تري قيبت ولينا بعده وتشوقي إنهم بيوضع شيء قيسين ترين حافظ إلى عدد الجنيد نستغل في تركيز كم فوقين طبعا واحد الشركات يسوى دام بجور بكل شيء سيدو سعوت الشركة دي inantu way la hadli jirtay oo isna uu la hadli jiray waqtiyada ugu badan bay wada qaalan jireen ayaa waxa uu qorshahaygu wuxuu ahaa qorshahayga koowaad inaan meherad yar furto qorshahayga labaadna in iyada meherso sida hawshii u socotay ayaa qorshihiisii koowaad uu hirgalay meherad yar buu furtay kadibna wuxuu qorshihii labaad oo inanta ahayd buu tabaabashaystay isagoo lacagtii urursadan wax badan ka dhul oolin baa inantii maanta kale la hadlay caawo kala markuu soo raaxo sidinantii waa buu telefoonkeedii waayay marka kulli sheekada waa la soo gaagaabinayaa horena waan u duubay laakiin markuu waayay baa gaastiyo biyaha waa isku daraya markuu saaxiibkeeda inanta waayo arrintii baa ku adkaatay isagoo dabadeedna aad u murugaysan baa waagi dambe bariyay xalayna ma seexan waxa uu mataan afka muu saarin waagi markuu bariyay ayuu haddana soo wacay sidii oo kale telefoonkii uu waayay ama ay ka qaba weeyeen duhurkii waa la gaaro shaqadii uu ka yaranastay halkii laga yarano saacinay wax la cunay buu isagoo hadana telefoonkii qabsaday uu waayay ugu dambeyntii telefoonkii sidii uu ku celcelinayay waa laga qabtay inaan baa ka qabatay kale wuxuu ku walaal markii la hadashay buu ku walaal hodan meeday waa codkeeda dad u garanay waxa ku tii walaal hodan waa la guursaday dabadeedna waxa moodayay inay ku ciyaarayso wuxuu ku hal iska guursaday bal igu dhiib horta dabadeedna warku ku ciyaartay wallahi waan ku sheegay waa la guud aakhirkii igu dhiibtay waxa uga bilowday calafayna kala kaxay eriya dhul baa ku yaraaday ninkan ina markaa arintu aad bay ugu weyn tahay qofka dareenka halka jooga waa garan kara sidii ugu celcelay telefoonkii waa miir beelayo uu dhacay waa la qaado dhakhtarka la geeyay ninkii dhaawac weyn qabo waa kii boodari lahaa dhakhtarkii markii la geeyay waa la fahmi waayay muddo kale kadibna faleen baa lagu xiray haddana irbada kale loo dhiibay ninkii baa xaadagaya baa khasab koomadi lagaga soo saaray ilaa kulba waxba aday lagu farsameeyay markuu soo kacay buu warniyo ma xanuunsanayay daayo aduu inankii noloshii way ka madoobaatay noloshii uu xaq u waday geediga dhinacii way ka soo xirantay muddo sanad iyo xogaaya uu iska ahaa qof jooga maqana aakhirka wuxuu go'aansaday inuu tahriibo jidku galay rafaad badan buu maray ugu dambeyn markuu Jarmalka igala hadlayo wuxuu joogay tahriib qoxoonti buu ku jiray xiro qoxoontiya marka qiso wuxuu iga sheekay 5 sano ah socotay sheekadu 5 sano socotay muddadan uu ka soo maqnaana waxa uu isku noqonaysa qiso ilaa 7 sano ah isku noqonaysa marka wuxuu igu yiri intaas waa iska dadka waa ka dhaxdhacaanay oo la yaabay wuxuu yiri laimka haddii aan xasuusto waxa iga khaldamaysa xataa jihadan u socdo marka isagoo ii waramay telefoonka iga waramay wuu ooyay marka qalbo oohin buu qabsanaya kadibna adiga galinsa sabaya dhowr cishaan qisadii ka guray marka wuxuu iga codsaday uu igu yiri ilow qisadaydaas waa inaad hees ka samaysaa bigu waxa ku dhunyo anigu heesaha iskuma fiicninay laakiin ma ansayar baan ka alifay heesaa imika laxanka la saaray la qaado inta badan waxaan ku wari niyo ma jecli laakiin ma ansaahaan baan u sameeynaya dabadeedna waa ibi guri marka inanku intuu ii waramay ba ereyada qaar baa kugu soo dhacaya hadallada qaar markuu kugu leeyahay
markaa maasadiisu waxay odhanaysaa soo aragtida qura afar wiil kalsoonida farxad kuma ahaado istiraxa kuma lado macnaha inta markuu hal maalin arko afar wiil buu istiraxa ahaan jiray soo anoo ku aaminay adna hodan ayaan qura asaaga ima cogan oo anigana imaad nicin waa saamir ilaahay oo ridi walaalkay sheekada waan kala iloobay qayb oo de waqti hore ahayd maasadu sheekada inantii horta waa la guursaday waxa nolosha sii qarib waxa ahayd inankay saaxiibka ruma ahaayeen bay inta guursaday sida awgeed jaarna way ahaayeen marka wuxuu iga sheekeynay aan xasuusta wuxuu yiri anigoo iska aan siba ahayn baa galbiskii arooska ee mushxarada lay soo mariyay markaas uu waliba isagu ku leeyahay saaxiibkii miyaanad arooskayga yimaanay isaguna ma ogeyn mood markaas uu ku yiri soo aragtida qura afar wiil kalsoonida farxad kuma ahaado istiraxa kuma lado soo kolkaan ku aaminay adna hodan ayaan qura asaaga ima cogan oo anigana imaad nicin waa si amar ilaahay oo ridi walaalkay inaad ahaatay adiga ayaanka waa si arami kugu maqan cishqigaad il duuftee alla uu tinta aan qabo ka leex xulashada balse aad ilowdiday ayaan qura jacaylkii ereyadan ku dhihi jiray dib ma yara awaasho ilmo qori makaati macnaha inta xasuusatay ma ooyday adna heshay ilhaamkii anna umalka aan qabo arladaba ka tagayo ku ilaawi waaye tolo godobta aakhiro intii baad ka galaysa afgobood si caashiq uu ka xaaja adagii hadii walaaqaya kaagi ahaa waxaan adii lagu aaminin aniguna sidii baan wacad kan adkeyn jiray ugu urfayooba wali kuugu ololaawi wacad kan adkeyn jiray ugu urfayoobo wali kuugu ololaa wali waan soo ololaa mana aarsan karayo ogi inaad afiya tahay oo rixaas la hoonagi ta inantii waa la qabaa imika markaa sidaa awgeed ma aarsan karayo buu leeyahay ilaahay hadaaye ubadkaagu waa dhowr oo waqtigan uu hadlayo waa carruur badan bay leedahay saddex bay markaa lahayd oo aniga ay warramayo marka anigu waxaan ahay ninkii oo ninkan ka dhex hadlaya macnaha waa xaaladda uu ku jiro wixii oo dhan wixii waxa isku xidhaysaa maasoo wixii hore iyo waxa hadda ilaahay hadaaye ubadkaagu waa dhowr helay oo akhbaaraha ogeysiiyay laabtee samir baan abdalahayn ina taalug baad iyo beere wax leh iyo doog maqlayo ayaamuhu arrinka ay siiyay anna heedha awdalan umaska dhex joogiyo ma ogtahay awaarahan awada ku noolaa anfaciga ma daadago una soomay awga ilmaduna sidii una ayay iga qubata 4 sano hadii aan idhaxaygu kuba qaban caashaqaaga ugu naftu way la alashaa sidan ku ahaan jira hadii aan yar eegana aqalkiina jeerkan adigoo ogsoonayn aan hortiisa ima jiraan baan xasuustaa oo nafta bilaadanka ah wax jecel imka inanta de marka jeceshahay te waqtiyada telefoon baa la helay waa wacaysaa oo gaari baa ka haysanaysaa laakiin de waqtiyadii hore oo kala aan xasuusano bal inaan aad jeceshahay oo ku xanaaqsan oo nad macal status ku soo cala cashaanad haynin de gurigooda hor istaagaysaa marka sidan ku ahaan jira hadii aan yar eegana aqalkiina jeerkan adigoo ogsoonayn aan hortiisa ima jiraayo baan xasuustaa waxa uu ku taalada igu sii olkomiya waa subax ayaantii meherkii arooska abshirtiisu ay timid iridayda goortu yimid ee warka helay adna aan ku soo wacay larkad igu abuurtaa dhaxda iga jabiyo anigoo nitaal hayn kolku ehelku ii baxay ku ila furay sariirtii isbitaalka jiifo tiyo dawadii ooftii la dhacay irbadihii ogaado ku tooso iga daahadaan idhi lala yaab hortaydii uduluubka aan galay asraarkan taagnahay adaa igu wacan oo ma ogida ayaanta xamaysay nolosha waa ahda feedhaha waa ololka laabtay waxa umalka taahesho aburka soo tufay cishqigu itaalsaday oo awood la bay helay waa eebay ugu taal waran ooftayga muday miyaan ooli karaya alwadkiya baroorta iga saaray umadan ku dhexlaayaanki wax si aan ilaaweyn ilaaqdii haweenkiyo ereyada xiqdiga dhala ula kaca badheerka anoo liicay awga afxumada igaadhay maxaan erey qarsooniyo adiyad dumar tirsanaya buu waxa jirta oo intiina waxa jirta ereyga waxa dadka ka ilaalisa hebel meelad guursaneen iyo hebel meelad guursaneen aad sababtoo ah dadkan qalbigooda adigu ma ogid imika ninkan wuxuu leeyahay maxaan wuxuu yiri wax saan ilaaweyn ilaaqdi haweenkii ereyada xiqdiga dhalabuu xiqdigu waa nacaybkii isnici anoo liicay awga afxumada ay gaadhay maxaan erey qarsoon iyo adiyo dumar tirsanaya waxa jirta qof meel fadhiya oo aanad xaalkiisa ogeyn mid dhaqaale mid fikir ayaad oranaysaa hebel maxaad u guursan weyd waxa laga yaabaa
qalbigii baynu qof ka raacay sida awgeed waxa ka fiican inaad qofka taa wallahi waqtiga waa inahayaa ila dad waaweyn baa leeyahay inaad tiraahdo wallahi waqtigii waa inahayaa ama aad tiraahdo wax Soomaalidu kuma amaahda kulaag warwareegtid waari mayside wara ka haro siyaabo kale laakiin qofka waxa laga yaabaa inantani markuu ii sheekay wuxuu ugu inta markaan waco isagoo wuxuu wici jiray de xaga joogo inanta saddex caruur la muddo kadib marbar baa wici jiray telefoonka sidii oo salaami jiray wuxuu markay salaanta si fiican iga qaaday ee inan wanaagsan baa haduu intaanay wax kale iyadu wax isleedahay bal malaha de wax amba ilaaq bay haysatay ama ugu tiraahdaa buuri wali maanad guursan markaasoo kooma galay sida eeri dhawankan wali kugu ololaa sida hooyo ubadkeeda ayaan ku ilmeeyaa sida uga xadiinka isha kugu barbaarsha saddexdu waxay sheegayaan noolayaasha alla ilaahay malaa xuma ka maqan inkastoo ay xayawaanka galayaan waa xayawaanka oo geeli sida eeri dhawanka wali kugu ololaa sida hooyo aadamihi sida hooyo ubadkeeda ayaan ku ilaashaa sida uga xadiinka isha kugu barbaarsha waa xamaaratadii intaas sida wuxuu jeceshay sidaas oo kale anna ku ilaaliyaa buu leeyahay sida hooyo ubadkeeda ayaan ku ilaashaa sida uga xadiinka isha kugu barbaarsha soo alalagtaadii waa maalintii mashxaradeedii arooskeeda soo alalagtaadii sacabkiyo arooskan soo alalagtaadii sacabkiyo arooska utintaan ka qaadiyo urugtii lamaangoyn buu kol baan dunida eerto aad jashaydu sigatay soo calafku aadmiga inuu kala irdhayn karo yaqiin uma ogaano waxaan ahay islaam jiray iimaanku ima celin nafsiyeeba kuma bado marka uu ducaynaya nafsiyeeba kuma bado asaaga hoos marin annakuma inkaarina istarax ku noolo ayahaagu dheeraa udubka ma liicsamo wa ilaahayna kaahay waxaad ee dawliga oorikaadu noqotee ku ilaashanayana indhihiis ruux ay ka helaan iftiin noqo naftu waa amaano lama siin adoomaha abidkeed mid waartee dib hadaanad ii arag ogsoono ku saamaxay adna eed hay qabin aad iyo aad baa u mahadsantihiin